waxaa maanta gelikii hore si diiran oo maqaamkeeda Soomaaliya lagu soo dhaweeyay magaalada Ceelafweyn barasaabka cusub ee gobolka Sanaag ee xukuumadda Soomaaliland u soo magacawday inuu maamulo gobolkaas Axmed Cabdi Falay ka soo qayb galay soo dhaweynta barasaabka cusub Axmed Cabdi Falay salaadiin cuqaal culimo udun xidhmaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceelafweyn iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan sidoo kale waxaa lagu soo wareejiyay barasaabka cusub shaariicada waaweyn ee magaalada Ceelafweyn dhanka kale shacabka ku dhaqan degmada Ceelafweyn ayaa barasaabka cusub ku soo dhaweeyay dareen kalgacaltinimo iyagoo Ilaahay uga baryay in xilka loo soo doortay Ilaahay ku asturo ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay maayirka degmada Ceelafweyn Baasha Xamdulla Warsame ayaa dhankiisa soo dhaweeyay barasaabka cusub isagoo ku hadlaya afka shacabweynaha reer Ceelafweyn Ilaahayna uga baryay in Ilaahay u fududeeyo xilkaas culus ee qaranku u soo doortay waxaa isna halkaas ka hadlay Chief Caaqil Faysal Abukar Xasan waxana hadaladoodii kamida mudana gudoomiye dad ku soo dhawow degmada Ceelafweyn oo ku soo dhaweynaysa gacmo furan iyo qalbi furan haddaan yaro warbixin oo kooban kaas iyo degmada Ceelafweyn waa degmada ugu ballaaran gobolka Sanaag warbixin kooban oo xagga juqraafiga haddaan kaas iyo degmada Ceelafweyn waxa dadkoodu ka kooban yahay 644 kiiloomitir oo isku weer ah tirada dadku waxay dhan tahay 60,000 oo qof dhaqaalaha degmadu waa xoolaha nool beeyada iyo beeraha run ahaantii waa degmada ugu ballaaran jamhuuriyadda Soomaaliland waana madaxa labaad ee gobolka Sanaag ku soo dhawow degmada Ceelafweyn ku soo dhaweynay qalbi furan niyad furan waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolkii Sanaag ku soo dhawow baan ugu leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa gobolka ballaaran waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan soo dhaweynaa gudoomiye gobolka degmada Ceelafweyn aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa adiga iyo madaxweynaha ku soo idmay gobolka markii waxaa isna halkaas ka hadlay barasaabka cusub ee gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay isagoo uga mahad celiyay dadweynaha sida diiran ee maqaamkeedu Soomaaliya u soo dhaweeyay magaalada Ceelafweyn gudoomiyaha degmada Ceelafweyn xildhibaanada golaha deegaanka uqaasha madax dhaqameedka dhalinyarada ciidanka booliska iyo dhammaan dadka sharafta iyo karaamada leh halkan igu soo dhaweeyay aad iyo aad waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دليل إلهي بمهاد له آد بان إذكم يعني إذكم مهد عليا صدق قيمة له شرفت له آد نوصل ويسين تقبله آد بان إذكم مهد بقية صدق كور قبطان ما أنت وحن نوصل عنا حلو ريتشنتي هدي لهاي إدمو وان كور هيا وان أوجهي تقبلني إلى يدقمو بلارتهاي بد كذا إيو دد كذا إيو سيستم كذا لأن أدبان قد ركسينهاي دي سؤالوينتا بان مانتا هدي لهاي كدقايو أي نوتا هاي مرسل أسكر تيفي عالمي يونيفرسال Ceelafweyn